kulanti waxaana wanaagsan meel walba joogtiin si walba muuqaalka idiin soo gaaraya saaxiibayaal maalin wanaagsan habeen wanaagsan waqti waliba ay ku tahay oo wanaagsan soo dhawaada taageerayaasha kooxda Chelsea war weyn ayaa maanta dhagooda ku soo dhacay kadib maamulka kooxda Chelsea iyo Enzo Maresca markay ku heshiiyeen inay kala tagaan oo boorsooyinkooda kala qaataan micnaha Enzo Maresca macallin uma sii ahaa doono kooxda Chelsea yaa qaldan maamulka kooxda Chelsea ayaa qaldan mase Enzo Maresca ayaa qaldan muuqaalka saraba inaan gudaha u galo wax yar oo faahfaahin aan ka bixiyo kadibna adigana ra'yigaada qaybta hoose nala wadaag inta gudaha u galo muuqaalka waxaan ka codsanaynaa marka hore muuqaalka inaad like badan siisid soo u gaaro saaxiibo badan page-kan afalo soo dhaadid haddaad horey la joogtayne oo ku mahadsantahay la joogista la jaanqaadkaada u sii share garay saaxiibadaada saan u helno saaxiibo qaali ah soo dhawaada saaxiibayaal maamulka kooxda Chelsea iyo Enzo Maresca waxay ku heshiiyeen inay kala tagaan oo boorsooyinkooda kala qaataan su'aal muhiim ah ayaa ku jirta meesha ah yaa qaldan maamulka ayaa qaldan mase macallin Enzo Maresca ayaa qaldana dib aan ku celiyo Enzo Maresca waxay Chelsea kala soo wareegeen kooxda Leicester City Enzo Maresca kooxda Chelsea markii la keenay xil ciyaareedkiisii ugu horeeyay oo ahaa xil ciyaareedkii horeeto Chelsea wuxuu ku soo celiyay Champions League laba koob ayuuna la qaaday xil ciyaareedkiisii ugu horeeyay koobkaas oo kale ah Club World Cup iyo koobka Conference League kadib kooxda Chelsea ayaa u aragtay Enzo Maresca inuu yahay macallin ku habboon projectiga kooxda Chelsea waxayna u soo bandhigeen inuu ka mid noqdo oo talo ku lahaado ciyaartooyda la keeni doono kooxda iyo ciyaartooyda laga diraayo Maresca oo codsiga loo soo jeediyey aqbalay asigoona isku arka markaa inuu xididdo samaystay oo CV fiicanna samaystay maadaama Chelsea ku soo celiyey Champions League laba koobna la qaaday Enzo Maresca oo talo ku lahaa suuqii kala iibsiga ee xagaaga ciyaartooy badan ayaa Chelsea laga diray ciyaartooy dhowrane waa la keenay balse horyaalka markuu bilowday waxaa dhaawacmay Levi Colwill sala socotiin dhamaantiinba Colwill markuu dhaawacmay Enzo Maresca press conference ayuu qabtay wuxuuna yiri waxaan rajaynaa maamulka kooxda Chelsea inay keenaan difaac khibrad leh oo aan ku dagaalanno xil ciyaareedkan maadaama naga dhaawacmay Colwill maamulka kooxda Chelsea dhagaha ayay ka fariisteen taladoo la wadaagay maadaama ka dhaawacmay Colwill Maresca press conference labaad ee isbuucii ku xigay horyaalka ayuu soo fariistay wuxuuna yiri waxaan u la jeeday difaac muhiim ah inaan ka heli doono ciyaartooyda aan haysano markaasi oo loo fasirtay inay maamulka kooxda Chelsea ay dhaheen difaacyada aad haysatid ha kugu filnaadaan ee isku shaandhay in difaacyo fiican ka soo saaro Maresca wixii markaas ka dambeeyay asigana wuxuu qaatay go'aankiisa cadka ah saa la socotaan Enzo Maresca wuxuu lahaa agency kale balse wuxuu la wareegay agensiga ugu awoodda badan footballka markay timaado agensigaana nin kale maahan waa ninka lagu magacaabo Jordan Mendes ee Cristiano Ronaldo u ah agensiga Enzo Maresca bishii October markii la marayay wuxuu wada hadal la furay kooxda Man City agensigiisa ayaa la furay kadib Enzo Maresca maamulka kooxda Chelsea waxba muusan ka qarin uu la wadaagay inay kooxda Man City danaynayaan inay la hadleen agensigiisa kadib isku dhac ayaa bilowday Enzo Maresca iyo maamulka kooxda Chelsea kadibna Enzo Maresca wuxuu bilaabay kooxda Chelsea iyo ciyaartooydaba wuxuu rabo inuu ka sameeyo cadaadis kaga yimaaday qaybta kore weliba ciyaartooy aan dhaawac ahayn ayaa waxaa la soo galay faraha dhakhaatiirta kooxda Chelsea Enzo Maresca ciyaaryahan oo caafimaad qaba ayaa lagu dhahayay ciyaaryahanka waa dhaawacan yahay ciyaaryahanka kale ciyaarsi maamulka kooxda Chelsea xataa naftigooda ayaa ku dhahayay ciyaaryahan hebel waa inaa ciyaarsiisa Maresca oo u arkay kooxda Chelsea in faraha lala soo galay weliba intii uu maamulayay markii hore awoodiisa ma aysan ahayn inuu oo ciyaaryahan uu rabo uu keeno kooxda ciyaaryahan uu rabana uu kooxda ka diro balse maamulkii oo ciyaartooyda garoonka tiimka ciyaarayo wixii dhammaan maamulkiisii markii faraha lala soo galay Enzo Maresca go'aan ayuu qaatay waad aragteen Enzo Maresca oo ciyaarayo 7 difaac Champions League kulankii Atlanta warar kalena waan aragnay Enzo Maresca oo Reece James iyo Malo Costa haysto oo red back ciyaarsiinayo ninka lagu magacaabo Chalaba Tosin oo mar walba la iskaga soo bilaabayo weliba kooxda Chelsea ayagoo gool leh ayuu Tosin garoonka soo gelinayay kadibna Chelsea waa laga badinayay mase daro ay qaadanayeen adiga ahaan marka maxay kula tahay kooxda Chelsea ma maamulka ayaa qaldanaa mase Enzo Maresca ayaa qaldanaa isku dhaca ugu weyn
meeshaas ayuu ka bilowday maadaama loo diiday in loo keeno difaac khibrad leh ra'yigaada qaybta hoose nala wadaag Enzo Marescane sidaas ayuu kugu macsalaameeyey haddii aad jecleed iyo haddii aad ku raaxaysan jirtay futbolkiisaba kooxda Chelsea dhowr macallin ayaa lala xiriirinaa welina lama hubo macallinka sida saxda ah ee kooxda maamulka kooxda Chelsea ay la wareegi doonaan balse maamulkan kooxda Chelsea hadda hogaaminayo waxaa dhibaatada ka dhex wada ninka lagu magacaabo Iqbaal oo awood badan ku leh maamulka kooxda Chelsea weliba wuxuu keenay ciyaartooyda kooxda Chelsea nimanka u soo iibiya asigaa keensaday Todd Boehly shaqo kuma lahan weliba ceerinta ugu badan Chelsea sida u iibsadeen ilaa ay hadda waxay ceeriyeen ilaa ay 5 macallin ninka lagu magacaabo Iqbaal ayaa maamulka kooxda Chelsea awood badan ku haysta adigu maxay kula tahay qaybta hoose fikirkaada nala wadaag kooxda Chelsea inta ka dhimay xilli ciyaareedka macallinkay ayay la soo wareegi doonaan inta kulmi doona muuqaalka xiga sidaas iyo nabadgelyo